wuxuu soo dhacay isla ugacdan oo hooyadood ka maqan tahay. waa kala jabiyey hadda waa iska cunayaa si tartiiba. hooyadood ugaarsi iyadna ugu maqan tahay si ay u soo ugaarsan lahayd. tan ayay iyaduna u awood sheeganaysaa oo markiiba gacanta ayay ku dhigtay isagoo waqti ka qaadan. soo qaada ay islahayd ubadkaagii ula kaalay. dhexda mid kale ee iyadana cidhiidhi ku gelinaya oo inuu ka qaata rabo. way u sii daysay. hadda waxay ku soo hoyatay isla goobteedii. bilowgiiba waxay aragtay in loo dhacay meeshii oo ilmihii yaraa ama ogacii la cunay. waa su'aal isweydiin leh ayaa ku dhici kara oo ilmihayga taaban kara. dhulkii ayay eegaysaa. hadda dibidda ayay soo joogsatay si ay u ogaato ama ay u hesho dembiilaha. hadda waa iskeenay oo soo noqo ayuu isdhahay si uu ugu helo ubad kale uu u cuno ama uu si dhammaystiro. waa la qabtay hadda oo qoorta ayaa lagaga istaagay. meel xun ayaa la hayaa oo nolosha gabagabo ayuu ka yahay. tan lagama soo hadhi karo ciddiyahayga oo hadda sidaas ayuu kugu daayay. mamaa horena waxay ahayd dacawo meelay macal ku dhadhamisay macaluul ugu dhimatay. sidan ayuu ugu raaxaysanayaa. hooyaduna iyadu waxay awood u sheeganaysaa mid kale oo aan ku qiyaasay inay tahay hooyo oo iyadana ubad ay u soo ugaarsi tagtay. goobtan waa sidii loo kala awood weeyahay oo midba mid ayuu awoodda u sheegtaa. waana nidaamka ay ku dhisan tahay isla noloshani. haddaba tuug noqo oo waxad waa dhacdo adduunka ka dhacda oo maaha mid nagu cusub. dadna xirfada ayay ka dhigtaan oo waxay dhacaan hantiyo bila'aadan, mid dadweyne, mid dowladeed, intaba way dhacaan. kan sayaab kale wuu ku soo noqonayaa isla goobtii uu wax ka dhacay ama uu ka xaday. waxaana la mariyey ciqaabtii uu qalmayey oo ah naftiisa inuu macasalamadeeyo. wuxuuna tusaale u yahay ama uu cashar u yahay dhammaan xatooyada, kuwa xada xoolaha dadweyne, xoolaha bila'aadan iyo kuwa masaakiineedba. maalin ay noqotaba tan ayaa u dambayn doonta.